الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وسلم. sheekadaanuna waa mid kale oo iyaduna yaab leh. dad badan bayna ku dhacday sheekadan oo anwaac kala duwan iyo siyaalo ka badan ugu dhacday. waxay ahayd nin iyo xaaskiisa ayaa wada socday, dariiqay marayeen, markaasay dad cadaanana waa ahaayeen. marka wiil madow oo fakri ka muuqdo oo dhibaataysan bay dariiqa ku arkeen. naagtii saasay intay ninka wiilkii u fiirisay bay tiri maxaa tahay? wuxuu yidhi waalidkayna waa fakri, waxna ima tari karaan, aniguna waxaan ahay ninka aan waxba haysan, ma isaacidi kartaan? ninkii wuxuu yidhi war naga soo wadi waxa kan tacbaanka ah, mooryaanka ah, faa'iidada aan lahayn. waxay tiri maya, wiilkan waa saacidaya. war ma waalan tahay? shandad ay wadatay bay furtay, boorso ay wadatay bay furtay, waxay ka soo saartay baqshad lacag doolaraad fara badan ay ku jiraan. markaas ayay wiilkii la hadashay, waxay damacday inay marka 2 ama 3 uga siibto. kii waaba xanaaqi, ninkii iyada qabay bakhiil buu ahaa, waa ka dhaqaaqayba. dhowr xabo markay dabcan soo saarto wejigeeda aragtay baa naxariisu gashay. baqshadii oo dhan bay gacanta ka saartay oo intaasoo doolaraad oo fara badan ay ku jiraan. waxay kaloo u furtay oo ugu sii dartay katiinad qoorta u surnayd ayay u furtay oo iyadana siisay. halkaasayna waxayna ku tiri, wiil yahow anigu wax kala kaama rabee, heble baa la yidhaahdaa, aniga hebla magaceedii bay u sheegtay. waxba kaama rabee, qof kaloo dhibaataysan markaad la kulantid inaad kaalmaysid un baan kaa rabaa. waayahay buu yidhi wiilkii. qoftii waa iska tagtay. qoftii iyada ahayd zaman baa soo wareegay. maalin maalmaha ka mida guri ay deganayd ayaa laga saaray oo waxaa looga saaray lacagtii bay bixin kari waayeen. ninkeediina waa ka tegay oo markuu arkay dheeshusay tahay, lacagiiba adaa ku cayaaray, maxaa wax iskaga bixinaa buu yidhi, halkaasuu ka baxay. iyadii baan waxaa usoo galay ninkii qaabilsanaa guryaha. wuxuu yidhi qof yaa dhegeyso, saacaddan la joogo boorsooyinkaaga iyo alaabtaada ururso, iridkana ka bax, maxaa yeelay waa lagaa saaray gurigii oo qof kalaa gurigii gatay. qofkaasuna dad inay meesha ku jiraan ma uu rabo. way naxday, oohin baa kasoo finiintay. wax alla waxay samaysay garan weydi. warniyahu isaacid bay tiri. war waxaas dhibaatadeedii bay u sheegtay. wuxuu yidhi waxa waxay khusaya aniga ma aha, anigu waxaas ma akhristo, alaabtaada soo gor oo soo bax. inta la maraayo ayaa wiil dhalinyaro oo aada u labisan oo qurux badan baa xagga ka yimi oo ninkii garabka ka taabtay. ninkii hadduu saa u fiiriyey, maxaa tahay buu yidhi. wuxuu yidhi anaa xalinaya mawduucane, ka bax adiga. see uga baxaa buu yidhi. ninka qofka guriga iska lahaa wuxuu yidhi waa in laga saaraa qofta tan. wuxuu yidhi qoftan guriga iyadaa iskale. cajiib, indhihii baa soo baxay. see guriga u leedahay? maari hebel ma la yidhaahda? haa. wuxuu soo saaray beec warqadii ku qoran tahay inay maari gurigan ay leedahay. yaa u gaday gurigii? wiilkii miskiinka ahaa oo maalintii dariiqa ay doolaraad ka siisay, ninkeeduna kaga xanaaqay, iyo katiinadda ay siisay. markaasuu wuxuu yidhi hebla sooma tihid? haabay tiri. wiil ma garanaysa aada maalin dariiq doolaraad iyo alaab noocaasa siisay? haabay tiri. isagii waayo bay tiri, anaana guriga kuu gaday, waxaana noqday nin weyn oo guryaha gada oo guryo badan leh. magacaaga markaan arkay guriga inaad ku jirtidna inaan ku gadan goostay. katiinadiina qoortiisa ayuu kasoo furay, markaasuu gacanta ka saaray. yiri katiinadan ma xasuusataa? ha. way ku soo boodayoo si aan kuugu shukriyo garan maayo, wax alla waxaan kuu sameeyo garan maayo, ayayna jawaabteedii ka dhammaan weyday. qisada marka waa qiso cajiib leh. waxyaala aad samaysid adduunka mar walba maaha in waxaa laga yaabaa abaalkeeda adduunka aad ku heshid. sideedana guushu adduunka aad guulaysatid inaad lacag badan yeelatid iyo maha keliya, adiga markaad guulaysatid inaad dadka kale gacanta soo qabatid oo guulaysid ayaa guusha iyaduna ka mid ah. ee ku dadaal inaad saacidid dadka. maxaa yeelay nabigeena wuxuu yihi calayhi salaatu wassalaam, waxaa dadka ugu khayr badan kuwooda ugu faa'iido badan dadka.
inta ayaan kusoo koobaya wallahu subxaanahu watacaala aclam.